naagaha madowga aad waxay u jecel yihiin rag cadaanka inay guursadaan qoftan waxa la yiraahdaa Ashley Jane bay ku magac dheertahay magaceedu waxa la yiraahdaa Ashley Robinson wadanka Tansaaniya dalxiis u aaday iyada iyo boyfriendkeeda laakiin Faraantii waxa uu galiyay wuu ninkacso u doonayd Tansaaniya markay tageen baatigeedana way ahayd oo Tansaaniya sibaar bay ka dhacay baatigeeda guriga waxa laga helay meydkeeda iyadoo dhimatay waxaan leeyahay istirdash laakiin dadka hotelka ka shaqeynayay oo sibaar ku yaala xidheen ayadii ninkeeda way istagaaleen markay istagaaleen ka bacdina labadaba qol baa la kala siixay ka bacdina qol kale laga helay iyadoo meeyda marka laga yaabaa in dadka shaqaalaha hotelka ka shaqeynayay lacag la siiyay waliba markii dambe qolka ayada lagu jabinayay oo istadashay waardiyo soo kaxaysto marka wax kasta dhici kara laakiin se naagaha madowga waxay jecel yihiin rag cadaanka laakiin naag madow ma jecla ninka hada wajigiisa fiirisi indhiisa la fiirada body language ka aqrinta qaanin weegiya some type of criminal qof xunbu weegiyahay ama qof gabadhan wax la damacsana ama inuu xumaan ku sameeyay kulli Mareykanka soo tageen all the way Tansaaniya keenay inuu ku dilo meesha uu keenay sheekada waxay noqotay feral aad loo hadalaya adii maxaa u malaynaysaa Is it a well-planned deception?